wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inuu sii kordhay dakhliga ka soo xarooda dekedda Muqdisho ee garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho xilli maanta uu kormeer ku tagay dekedda Muqdisho. Cali Cabdiraxmaan Aadan ayaa ka waramaya. kormeerka wasiirka maaliyadda uu maanta ku tagay dekedda Muqdisho ayaa waxaa ku weheliyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo qaar ka mid ah howlwadeenada wasaaradda kaas oo loogu kuurgalayay siday u socoto shaqada dekedda gaar ahaan howlaha canshuuraha. maamulaha furdada Xamar Axmed Cabdullaahi Samow oo ka hadlay kulan shaqaalaha furdada iyo madaxda wasaaradda halkaas ay ku yeesheen ayaa ka warbixiyay shaqada halkaas ay ka hayaan. howlka lagu shaqeeyo waa halkan qaybaha oo dhan ay ku shaqeeyaan qaybta qiimeynta haday tahay qasnajiga halkaas oo fadhiista qaybta gaadiidka waa kana shaqada rasmiga ah ee dhabta ah meesha ay ka socoto waa xudunta. wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Shacali Qalaco ayaa sheegay in kormeerkooda uu ku qotamo dhiirigelinta shaqaalaha iyo ilaalinta ammaanada dalka iyo dadka Soomaaliyeed. dowladdan magacay leedahay oo taqaaneen nin kasto madaxa wuxuu ka hadlaa musuqmaasuq baashu waxaan u leeyahay markaa waxaan leeyahay safety sayidku waa wareeganaysaa halla iska ilaaliyo taas waa idinku la dardaarmaya. Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in dakhliga dowladda ee gudaha uu si weyn u kordhay. furdada iyo airportka lacagta ka soo gasha waddankeena awal waxay ahaan jirtay in ka yar 10% waxa waddankeena soo gala waddan weyn oo khayraad fara badan leh ayaan leenahay. maanta dakhliga waddankan soo gala gaar ahaan federal government-ka soo gala haddaanay 90% ahayn kulli way ku dhowdahay waxa halkay naga soo gala. qaar ka mid ah shaqaalaha furdada ee wasiirka kulanka la yeeshay ayaa codsaday in duruufooda nololeed ee haysta shaqaalaha dowladda xil weyn iska saarto. wasiirka maaliyadda oo tixraacayay cabashada shaqaalaha furdada Xamar ayaa sheegay in dowladda ku dadaalayso sidii ay u soo dhicin lahayd xuquuqdooda isla markaana loo baahan yahay in qof kasta uu xil gaar ah iska saaro shaqada qaranka uu hayo. waxaan idinla dhaqmaynaa dad Soomaaliyeed oo rag iyo dumar ah oo xuquuq leh mas'uuliyadna saaran tahay. finally waxaan oranayaa waxa weeye waddankeenu waa hooseeya haddaad 10 saacadood iyo 20 shaqayso waxba ma aha shaqe waxaan ku sii karnaa ku siinaa waddankuna waa waddan ma aha qani oo lacag haysta ya ku dar aduguna waxba lagu dar ku dar 2 saacadood ku dar oo 3 ku dar oo wixii ka soo gaara waa ishaan ku haynaa waddanka ku abaal gudi doona ishaan ku haynaa ishu way furan tahay waxba la idinka qori doonaa fayl baa la idin samayn doonaa maanta haddaad heli weydo carruurtaada helaysaa marka de cadaawo ma shaqaynayna dalkeena aanu shaqaynaynaa inkastoo aan isku dayi doono overtime kaaga in faraha laga saaro ama la habeeyo si loo habeeyo. wasiir Beyle ayaa sidoo kale sheegay in xafiisyo waasaca loo samayn doono shaqaalaha maadaama kuwa hadda ay ku howlgalaan aan ku filnayn. isagoo sidoo kale tilmaamay in shirkadda maamusha dekedda Muqdisho Alberg ay ku howlan tahay sidii ay xal ugu heli lahayd bacad la sheegay inuu xiray taas oo sababtay in maraakiibta qaar ay ku adkaato inay halkaasi ku soo xirtaan. Cali Cabdiraxmaan Aadan SNTV Muqdisho.